السلام عليكم أخيارتا مeel kastoo dunida ka joogtaan waa walaashin Lovely Aisha oo idinku salaamayso 114 maanta waxaa inoo haya exercise kale oo u fiican full body hadda waxaan ka bilaabaynaa hadda yani stretching because yesterday training still yani korkayga ku jira so stretching aan ka bilaabaya saan waa stretching yani murqaha ku kala baxayo jirka ku kala baxayo saan markaa sameysid yani waxay noqonaysaa fresh waxaa diyaar u noqonaysaa exercise inaad sameysid kor xanuunka iyo waxaas ka baxayaan so hadartan saan ka bilaabaya stretching yani muscleska after that training ka caadiga noo bilaabanaya akhyaar saan waxay u fiican tahay caloosha tight ku noqonayso also gacmaha iyo hilibka geesaha ka soo baxayo waxa soo dhanay waxa la dhahay ka jiraysa hadaadan bir haysan birta laazimaha anything oo ka khiyaarta birta laazimaha ay xaaga oo culus yar leh xafada ka raadsan kartaa qaadi kartaa adoona gym aadin gurigaada ku sameyn kartaa caloosha tight ku noqonayso geesaha hilibkana oo ka baxaya gacmaha kana waa kana also still asagana waxa waaye caloosha maanta sheekadeena waxa u badan yani caloosha because caloosha dad badan caloosha ka qeyliyay waxaan la dagaalameynaa caloosha shan markaa sameysid waxay maxaa la dhahay waxtar u leedahay caloosha also lugaha khiyaarta dib maahan sacab maahan sana lugaha isku dhaafinaysaa sida maqaskii oo kale marka everyday saan sameysid oo 3 times aad sameysid waxa ku arki doontaa calooshaada isbedel weyn oo ku cajibiyo because calooshii baa maxaa la dhahay faadkiga ka jarmaayo hilibkii badnaaya ka jarmaayo yani waxay ku noqonaysaa wax yar soo falayd oo qatar ah waxa rajeenayaa akhyaarta inaad ka wada heli doontaan marka yaa loo maleynin kana waa asagiyo yani wax yar ka duwan laakiin labadooda laba facaal ay sameynayaan labadaas facaal ay sameynayaan waxa kamid ah caloosha iyo lugaha waa almost the same laakiin different waaye hadin kan iyo kan way isku ogyihiin kana sameeyay kama waxa uu sameynayaan laazim way in labadaba sameysid marka asxaabta waxaa idin kula talin lahay in exercise-ka aad badsataan because ayaantaanitii maxaa la dhahay dadka waxa ku batay lafa xanuun iyo waxaas exercise-ka wuxuu ka caawinayaa yani good health in heshid iyo maxaa la dhahay qurux siyaade please like subscribe share xageena way guys